بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل والبؤد جوجتان وحنو إذن لنهاي كلنتي وعن أو ونكسن كسو دوادا وركي قدام بيه الصومالية وعندين أقريو أنيقو سهر يوسفا deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalkan Soomaaliya ayaa waxa ka jira abaaro xoogan oo saameyn ku yeeshay dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo qaar badanna ay u dhinteen abaarahaasi qaar kalena ay macluul daran ku haysato waxa taasi u sii dheer maciishada qudul daruuriga oo sare uga kacday guud ahaan dalka Soomaaliya iyadoo dadka Soomaaliyeedna ay intooda badan haysato dhibaatooyin fara badan oo markaas ay ka soo food saartay dhibaatooyinka dagaaleed iyo waliba barakaca ka jira dalka Soomaaliya haatan ay u weheliso abaaraha xoogan iyadoo xilliyadii roobabka la heli jirayna aan sanadkan la helin dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa ka hadashay abaaraha ka jira gobolada dalka iyadoo ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ahna wasiirka warfaafinta dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan uu dhawaan sheegay in gobolada dalka ee abaaraha ka jira beesha caalamka uu ka codsaday in gargaar bani'aadamnimo ay la soo gaaraan dadkaasi ay dhibaatooyinka haleeshay madaxweynihii hore ee wadanka Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka ay ku fiirsanayso dhibaatooyinka ka jira wadankan Soomaaliya isagoo sheegay in aysan wax ka qabanin dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Itoobiya Siin Mesfin oo dhawaan ka ambabaxay wadankan Soomaaliya ayaa isna waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya ay ku fiirsanayaan beesha caalamka ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde iyo wafdi uu horkacayo oo ku sugan wadanka Sacuudi Arabiya ayaa boqortooyada Sacuudiga ay ku casuuntay halkaasi si ay u sii socodsiiyaan dib u heshiisiinta uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Nuur Cadde oo la dhex dhigayo mucaaradka ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaana lagu ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa inay la kulmaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Sacuudi Arabiya odayaasha dhaqanka ee degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa waxay wadaan dhexdhexaadin ay ka dhex wadaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Yuusuf Dabageed iyo waliba maamulka degmada Bulaburde oo khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay iyadoo dhawaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed uu ku eedeeyay maamulka degmada Bulaburde inay gacan siiyaan kooxaha ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka Soomaaliya daawadayaal warkaasi intaa ha inoo joogo haatana idinku duwo istuudiyaha magaalada London ee wadanka Ingiriiska halkaas oo uu ku sugan yahay wariyahayaga Cawil Daahir Salaad oo inoo akhriya wararkii xalay baxay si uga bogtaan daawadayaasha aan u suura gelin inay warkaasi daawadaan ama dhageystaanba sida wadamada qaaradda Australia iyo wadanka New Zealand